isbedel marka aad nafta la doonayso 3 arrimood ayaa isa soo xaadiriya. 3daasina waxay u baahan tahay dadaal gooniya, mid kastaba dadaal gooni u baahan yahay. Muuqaalkani waxa weeyaan waa baraarujin si aad ula socoto oo adiguna dhinacaaga aad uga dadaasho. Isbedel markuu qofku doonayo inuu sameeyo 3 ayaa isa soo xaadiriya. Tuu horeysa waa shaydaanka a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. Horta balan buu qaadayo wuxuu yiri aadanaha jidka waan ku dadaalayna ka weecdaan. Marka Ilaahay naguma salidee balan buu ku qaaday maalin kastana wuxuu nagu jiraa dagaal buu nagu jiraa. Marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala azza wa jal wuxuu yiri kii ku raacay laftiisa ka adkaan waya isaga u taala oo kala deeya. Marka Ilaahay inuu ma soo dhaweeyo dawadiisu waa maxay marka dawadu waxa weeye waynaad horta insha Allah had ku dadaasho waxyaalaha ka fogeynaya inaad samayso. Taasna waxay u badan tahay waa dhikriga waa ducada oo aad ka ducaysato oo dhikrigood ka akhrisato oo quraanka ka akhrisato waxyaalaha ka fogeynaya waxa weeyaan meelaha uu joogo inaad u dhawaan waxyaalaha laga dhaxelo meelaha uu joogo meelaha laga helo badi inaad u dhawaan. Marka shaydaanku wuxuu kamid yahay markaad isbedel doonayso waxyaalaha isa soo xaadirinay marka horeysa. Arinta kale ee jirta waxa weeyaan markaad isbedel nafta la doonayso isa soo xaadirinaysa waa naftaada weeyaan. Naftu hadayna diyaarsanayn isbedelka kulama wadayso kulama rabto. Marka naftu maxaa naf la yiraahdaa? Nafsi maxay ka dhigan tahay? Nafsi waxa weeyaan waa jirkii iyo ruuxdii la isku geeyo. Jirka iyo ruuxda marka la isku geeyo nafsi bay noqotaa. Marka mid kastaba cuntadeedii bay rabtaa walaalayaal. Jirku cunto doonayaa, ruuxdana cuntay doonaysaa. Marka naftaada hadayna lahayn discipline, hadayna lahayn nidaam, hadayna tarbiyadaysnayn, naftu waa tamar walba ka soo horjeeda weeyaan. Marka isbedel doonayso waa number 2 ka hor imanaya. Marka ayadana mid kastaba si waqtigeega, cuntadeeda, dadaalkeega, tarbiyada ruuxda, tarbiyada jirkaaga, nafsi waxay ka dhigan tahay waa jirka iyo ruuxda oo la isku geeyo ayaa nafsi noqota. Ka naftaada ayaduna waxay kamid tahay number 2 ka soo horjeedi kara isbedelka naftaada la doonayso hataanad wada u jihayn. Saddexaad isbedelka naftaada ka soo horjeedi karta ayaduna waxa weeyaan waa dadka. Marka maxaa u dawaayada waxa u dawaa noloshaada inaanad banaanka keenin. Been ku noolow kuma lihi wax qarso kuma lihi laakiin waa inay wax ku kala cadaan karaan. Noloshaada waxyaalo waxa jira private iyo waxyaalo aad dadka la share garan karto. Waxyaalaha private-ka ee adiga reerkaaga, awlaadaada, xaaskaaga, odagaaga, familkaaga, walaalaha ku eeg ayagii ku eegayeen. Waxyaalaha private-ka adiga laftigaaga kugu eeg oo u baahnid qof kale la share garayso aday kugu eegtaa. Wixii public wixii aad asxaabta la share garanayso, wixii dadkaas la shaqeynaysan la share garanaysid, wixii jaararkaaga, deriskaaga, dadka garanayso la share garanaysana waa gooni. Marka arrimaha waa inay ku kala cadaan karaan. Maxaa banaanka iman kara iyo maxay tahayna adiga ay kugu eekaato. Dadku Ilaahay naguma salido xasadku iska badan yahay caynku uu jira ishuna waa xawayaan waa xaq weeyaan wax jira ka inay ay arrimuhu ku kala cadaan karaan waa muhiim. Marka qofku isbedel doonayo wixii private ka dhigo wixii dadka la share garanaysan la share garay laakiin noloshaada banaanka keenin. Waa marka noloshaada banaanka keento ee dadka daaqada u furto laga daawado oo wax kastood sameynayso wax kastood ku hadlayso wax kastood qabsanayso beridan talaabada qaadayso mar walba ka sheekanayso daaqada furan tahay isbedelka uu ka hor imanaya. Waayo marxalado badan waxa la kulmi kartaa aan ku fududeyn la talaabo qaado. Marka waxaan ku soo koobayaa videogani marka qofku isbedel uu rabo 3 marxaladood baa ka hor yimaada. Waa shaydaanka a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim, waa naftaada hadayna tarbiyadaysnayn oo discipline aanu sameeyno wadaanadu jihayn iyo arinta u dambaysa waxa weeye waa dadka waa inaad heli karto qaab aad kula dhaqanto qaab aad kula noolaan karto taasina waxyaalaha la sameyn karo insha Allah muuqaal kale ayaan ku soo qaadanaa bal 3 ogsoonow ka fikir si ugu hordhacintan insha Allah aad baan ku salaamayaa maalin wanaagsan.